السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. رمضان مبارك، رمضان مبارك. انت كعدي يا انت سيسي حنيسة يا انت سو جيدبا رمضان مبارك. الدويد النول ومحارك تكون لابن صومالي بين ويشك بين كما مهما هذا الليلي كلك مهما ياشا انت بدن وارن حلري كبطلة كباها كتلويس كبيسة لأيغا إلهو وحي ماركتي بين شيغايا إلهو بين سيادي إلهو بين سيادي إلهو بين سيادي bini'aadanka waxaa loogu ducayn jiray ilaahu rasaaqada u siyaadi anuu waxaan ku ducaynayaa tobankii dambe ilaahu dadka waaweyn ee beenta ka sheegay dadka sharaftoodii cizigoogii qoomiyaddu buugay qortay qof kasta oo been laga sheego ka beenta ka sheegay ilaahu beenta u siyaadi kolkaa ururkii maaragtay beenta iyo baabka u bixiyey ee ilaahay iga aqbalay ee odayaashii maaragtay tiktokeradii suldaan isku sheego ay ka soo horjeesteen haddana maaragtay meerkii boorama u yeedhee baliilo dhegaysta qandaraas kale uu ka yimid aan inii sheegayaa anu waxaan sheego 95% oo wax runa waxay naga yidhi ururkan waa ururkii beenta iyo baabka balse ninka taariikhda soo soo gala waa nin been sodoh baa la faraxumeeyay yidhi isaga naaristiisa caawa laga bilaabaa waxaan ugu duceeyey sodoh faraxumeeyay waa isaga kolkaa baliilo dhegaysta oonu jawaabayay hoggaanka sare ee ururka ummad ayaa sheegay inay ku degdegeen samaynta ururka sidoo kalena sheegay inaanu ururku shaqo ku lahayn siyaasadda sidoo kalena shaqo aanu ku lahayn xamar iyo meelo kale toonaba uuna yahay urur Somaliland aqoon-yahan Maxamed Ruush iyo xubno kale oo ka mid ah ururka ayaa hadalka qaatay waxaanay ka warbixiyeen kulley maalmaanta waa waxba dhacayo urur la yiraahdo ummad baa lagu dhawaaqay markaa filcid ninka hadlay waa ninkii lahaa زيلع بس سوق بقبيننا ونكي لها وضد مراد وين وقاقليال بالليل دقيست waxyaalaha markaa shakiyaadka soo baxay waxaa ka mid ah in la leeyahay wadankii dee xamar iyo Djibouti baa dee laga soo galay halkan waxaan ummadda uga cadaynaynaa ururkani waa urur dadka reer Aadan ay samaysteen danaha dadka reer Aadan ka shaqeynaya wax siyaasadna kuma shaqo laha xamar iyo Djibouti midna xiriir lama leh diyaar loo baahan yahay hawlaha galno ururkan waa sabafal wax siyaasada maaha marka intaas weeyaanay wax kale marka ururka ummad ku jira ma jiraanay bulshada soo ogaato dawladda soo socoto kullu wixii farsamo ahayd ee anagu aan ku maxaadana xagga waa kan ninka maaragtay sodoh faraxmay weeyaan ninkani taariikhda sugan ayuu ku soo galaa waa ninkii beenta ka sheegay buugga Cabdalla Xaaji oo qoray iyo janagalihii u soo halgamay wadanka Djibouti alxaaji xasan gule abdoon yiri 68kii ayuu tagay xamar ila dhagaysta kiimaday sharciyeynta ayaanu ku khaldanayn waxaanu u ballan qaadnay gudoomiyaha inaanu sharciyeyntii haddii la yiraahdo inaanu gudageli doono oo aanu si fiican aanu gudageli doono haddii la yiraahdo gudoomiyaha laftiisa waxaanu ku codsanay in ururka ummad maadaama uu cusub yahay uu leeyahay kula dhawaan aan abuurnay isagoo wixii tala ah iyo wixii tusaale ah inuu had iyo jeer nala garab joogo annaguna aanu si toos ah isaga aanu ugu xidhnaan haddii la yiraahdo waxa kale oo jirta markaa kulley tuhunno jira oo gobolka awdal ah baa jira laakiin waxaan oran karaa ma hadal inaguma dalanay murtidu waxa weeyaan haddaad maaragtay haddaad dad wax dhagaysanay ururka kolkii la waxeeyay TikTok-ayga gala Gel TV waan ka jawaabay ururka inuu waxba ka jirin uu yahay ururka beenta iyo baabka waana ugu duceeyay in yar dabadeed odayaal maaragtay aqalo aqlada tiktokerada hau bixiyo soo daba aguugaya ayaa beeniyay oo gada bursiya carabna ma ahayn ciisana ma ahayn isaaqna ma ahayn waa gada bursi waxa beeniyay maanta waxaan inii sheegay halkan ka cadaynayaa shaydaan buurmadu kulku buurama yimiday ayuu ragga la kulmay wuxuu ku xidhay wasiirka maaliyadda ee xamar oo haddaana been sheegaynin gada bursi ah ayuu ku xidhay ururkan ninkaaba ayaa lacag u soo diray boqor buurmadow
oo raggan kolkii uu yimid uu boorama joogay ayuu waxa isku xidhay jabuuti shaqo kuma lihidiin jabuuti aygu kolkuu xaaro ee dhukan qurbaha la joogo xaarkiisa uu iska masaxo wuxuu iskaga masaxa tigaadda kolkaa jabuuti sheekada jabuuti haddeed ilooba haa heestii maxay way ku daysay ilow ee ninkii maaragtay miskiid ka soo baxay cadaabta balfinaya ee bk heestaa ku qaada jabuuti ilooba muqdishona ilooba laakiin waa ninka wasiirka maaliyadda muqdisho ee ka soo jeeda boorama dadka boorama ku aftirsaday samaroonka oo ku xidhay shaydaan buur madow waa isku xidhay kolkaa ilaahay beentiina hay nii siyaadiyo ururkana waxaan ugu duceeyey ururka beenta iyo baabka ninkaa maaragtay sodo fara xumeeye naanaystiisa insha allah kolkaa ururkii beenta iyo baabka jabuuti ilooba walaalahayo kolkaa zaylac ayaan isku ogeyn ururaan waxaynayna iskuma ogeyn been baan sheegayna iskuma ogeyn zaylac baan leenahay oo ciise ka qaadanayna baa isku ogeyn kolkaa insha allah intaa baan kaga baxayaa ramadaankiisa barwaaqo iyo bashash baan iigu ducaynayaa iyo ururka beenta iyo baabka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu